الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا انتقامه إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تذكره ما أنت خطبة النجا وحيكون سابسن تهي أنت محان وجهسنا صلاة مركان دكونين وطن أنتو جهسنا أنت محان وجهسنا أنت محاجر وادقرنيسين علماء أيا نوشيكتي وحن أنتو وجهسنين لكن دد بدن أو شكي أتكقوا أما تشويش الوفور كرا أيا نوجرو ما دام أنا نفتر نجا الله كلني دد وين أو ديال oo inta maxaan ugu jeesanaa aan su'aalnay qabriga nabiga inta jira ayna dhaheen maadaama xajka noogu dambeeyay duq maamo oo Soomaali Kacbada inay dawaafto 7 jeer ay banaanka ruusatooy oo isoo gacanaha kor u taagto leedahay alxamdulillah nasiib badiniya maanta anigoo qabriga nabiga 7 jeer ku wareegtay maadaama aan u hayna arrimo noocan oo kalaatay diintana dad gaala ay barteen tashwiish badanna aad jiri lagu dabagidin kara xadiisi aayaati kulli inta maxaan ugu jeesanaa Allah subhanahu wa ta'ala waxaad qadari awoodiisa adduunkan aan joogno oo 5 qaaradood ka kooban meesha xundurtiisaheed oo bartankiisaheed in aad seera ka suubiya oo la yiraahdo meesha dhulkaas intaas hala xire anagu hadda dhulkeena seera laga aqaana wax xaram la yiraahdo oo sidaas dhulka bartankiisa ayaa sidaas loo xayiray xaramkaas oo aamin taariikhda dhan diimaha maalinkii la seerkaas weyn la seeray iyo hadda dhaxdooda aamin bini aadankaad aamin u yahay xayawaanaadka ayaad aamin u yahay shimbiraha ayaad aamin u yahay xataa geedaha ayaad aamin u yahay subxaan allah geed haddaa la gooyo sidii kutubta axkaamta aad ku aragteen geed aad bini aadan talaalanin dhulkaas xaramka haddii la gooyo geedkaad aad geed weyn yahay ganaax neef weyn oo lo' laga qaadaa geed yar haddaad yahana neef ari ayaa laga qaadaa shimbirahaan la taaban karaynin xayawaanaadkaan la taaban karaynin xaraman aaminan xaramkaas inteed ku dhacaa dhaxdiisana maxaa ku jiro inaan isxasuusino waaye xaramka waxaad ku dhacaa dawladdan Sacuudi dhinaca orax u dhac qarbiil mamlakada Sacuudiya dawladda Sacuudi dhulka ay deganta oo Xijaaz la yiraahdo orax u dhaceeda ayaad xaramkaas ku dhacaa xaramkaas oo seerka aan dhahnay bal aan cabirna waxa waaye 550 kilomitir waaye dadka reer magaal waay dhulku waa yaqaanaan waa seera buurahaas waa weyn dhulkaas oo dhan 550 kilomitir ayaad seerahaas wareegiisa la egyahay ha u malaynin maka xaramka la sheega maka u malaynin dhulkaas waa wareegiisa inta la egyahay ayaa la cabiray Allah subhanahu wa ta'ala waxaad u diray malaku Jibriil oo dahay kac soo calaamaday malaku Jibriil waxaad baray seerahaas ayada inaad calaamadeeyood ku soo wareega abuna Ibrahim oo dahay kaali inta soo qaad inta mar xariiq inta mare buuraha waaweyn oo maka markii la joogo ka macnaha 550 kilomitir waa intee waa seero weyn oo dhulkaas marka waxaa tabeela ayaa lagu wareejiyay meesha seerka ee xaramka wixii xagga ka jira xilli ayaa la yiraahdaa
wixii gudaha ka soo jirin xaram ayaa la yiraahdaa tabeelayaal ayaa la suri tabeelaha surun 943 tabeela ayaa surun sidaas ayaa loogu meesha kulli sidaas 943 tabeela buurahaas ka koray ee dhulkaas oo dhan seerahaas ayaa lagu soo wareejiyay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi markii maka la furtay oo dhulkii xaramka ay dhulka la furtay nin asxaabi oo Tamiim ibn Asad liira reer Khusaaci ayaa dirooday kac soohimaha inay baaba'ana laga yaabaa seeraha kac soo calaamaday ninkaas aqoon weyn lahay ninkaas ayaa loo diray marka damadana Siid waxaa cusboonay Siid Umar ayaa cusboonay xaramkaas maka magaalada maka ayay ku dhex taalaa magaalada maka ayaa ku dhex taala xaramkaas waxaa kor ka qaabilsan samaawaadka baytul macmuur waxa la yiraahdaa guri weyn oo ay malaa'ikta u xajisa oo samaawaadku ku yeelo baytul macmuur la yiraahdaa oo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi habeenkii la dheelmanay aad maray nabiga muxuu ku sheegay meeshaas salawaatullaahi wasalaamu calayhi halka maalinta 70,000 oo malag ayaa maraysa oo ku dukunaysa meeshaas ayadii oo dawaafaysa oo aan dib ugu soo noqonayn maalinkii koonka la abuuray hadda intuu koonkan laga baabi'inaa maalin kastaba 70,000 oo malag ayaa maraysa oo dawaafaysa oo aan ku soo noqonaynin بريان كالكوليتا موبيل ولا حال هايستا سنة ميغا ملغا مريس 25 مليون لaba boqol oo kun ayaa sanadkii malaa'igta marays meeshaas kalkuleeta haysta naftaada ku dhuf 12 bilood oo misad macnaha maanad ka soo qaada hadaad ku dhufato ilaahay awood badana cibaadadiisi la yacsuuna allah ma amarahum halkii sanadka hay meelaha kale lama rabi meeshaas malag maray mardan soo noqoni maayo fursad ma helaayib ما بالله قلب دت كعبضة ملاك تعبضة 25 مليون إلا بقولوا كن أي سنة ماشى حي كعبضين معناها ماشى مكة أي قابل سنة هاي مكة وحيكون تحت الله حرم كشريف أي يكون تحت الله مكة وادي وين أو معناها بي وضع تحديث أي يكون الله سيدات كواركتين دت كينا حيجي فرتجس وحا ورقسن بورو وحا قياس لدها أيا جرتا دول كان محاد بدا معنا معاد كفوقيه عن سطح البحر محاد كفوقيه دول كان أنا مد عن سطح البحر كاونت مدارة ماشي فوق متقنا وباني سواي ماشي وصل الرئيسة باني سواي صادرت إدجار كإنجليز كاي دول كان مركز إمادي ماشي درقالة اللي يا مركز دقاز قرون كسو بالسناي واحد أركيسا سايني سهان ماشي وصل الرئيسة كاونت مديرة عن سطح البحر ماشي سواي لكن ماشان مكة بدأ أيا أدوس أكتين بدأ عسواي سدح بقول أقدم ميلهاس أي معناها كسر الرئيسة عن سطح البحر دولك أوردن حندرتي سواي مركي العبري شنت قارضات مركي اللي سكان برتن كاضي حندرتوضا وحال نقنا يا مكة يا نقنا يا مكة وحواي أحب أرض الله إلى الله كون كان ميل أي بي فديان ميل بر ماشي إلهي أوجع عليا وأنت مكة واي سيدو الرسول كليه صلوات الله والسلام عليه markii laga bixinay dib inaad u jilaacay asagoo gadaal u fiirna ayaa maka wuxuu leeyahay amma wallahi innaki la khayr alillah wallahi baan ku dhaartay arlada ilaahay meeshu khayr badan tahay wa ahabbu ardillah ila allah arlada ilaahay meesha loogu jeclaan badiyaa ilaahay agtiisa ayay tahay hadii ayna qoomka degan iga bixinin wallahi kama ina bixin buu xadiidka Tirmidhi waaye
nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maka markii la furtay wuxuu leeyahay hada albalad xaramahu llahu yowma khalaqa asamaawaati waalard fahuwa xaraamun bixurmati illaah ilaa yowmi alqiyaama ilaa yowmi alqiyaama xurmadaasaa la siiyey koonkan intaas la eg sharaftaas iyo xurmadaasaa la siiyey meel kale nabigu wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laysa min baladin ilaa sayadachu dajaal ilaa maka waalmadiina dhul beled oo dhulkan ku yeela ma jira ilaa dajaal waa mari doonaa magaaladeenna waa soo mara ama dheera waa soo mara ina annagoo joognayda migii dhiminin lama oge laakiin waa soo maraa sida nabiga dilkiis ka muuqtay maka iyo madiina un baanaad gelaynin markaasaa wuxuu leeyahay nabiga laysa min niqaabiha naqb ilaa calayhi almalaa'ika saafiin yaxrusuun waa xadiidka bukhaari ma jirta meel oo macnaha iridaha laga soo gala ilaa malaa'ig ayaa taagan safan oo waarideynaysa maka sharafteeda waxaa ka midi nabi maxamedaa ku dhashay meesha sharafteeda waxaa ka midi nabi maxamed ayaa nabi looga yeelay sharafteeda waxaa ka midi maslag oo mansag oo addoommaha dhan cibaadadooda ayaa laga dhigay saa darteed xajkan oo arkaanul islaamka ka mid ansixi maayo ilaa makaladaas moogiy siday qur-aankaad ku garanaysiin magacyaalkeeda maka ayaa ka midi baka ayaa ka midi umulquraa ayaa ka midi albaled ayaa ka midi albalda ayaa ka midi waadin gayra dii zarcin seerihii weynaayo xaramkaayoo 550 aan ka dhignay oo ammaanka ahay magaalada makaad oo barakaysneed dhexdeeda markii xaramkaas macnaha lagu suubiyo marakadana ay wanaagaad leedahay dhexdeeda waxaa ka dhisan masaajidkaas bannaan weyn waayo weligiis waa bannaanaan jiray bannaankaas weyn bannaankaa dhexdiisa waxaa ka dhisan kacba inteen u jeesanaa inta maxaan ugu jeesanaa meeshaan u soo soconno waa intee xaramkan weyninka badan oo seeraha oo barakaysan magaaladan barakaysan oo lagu dhex dhisay magaalada dhexdeeda waxaa ku yeela masaajid oo dhul weyn oo bannaan ku yeela masaajidka dhexdiisa waxaa ku yeela kacba kacbadaas yaa dhisay meeshaan salaada u jeesanna kacbadaas waaye yaa dhisay malaa'igta ayaa dhisay kacbadaas malaa'ig ayaa dhistay malaa'igta ka bacdi abunaa aadan ayaa dhisay meeshaan salaada la qaabidayni abunaa aadan kadib mar walba ay duwowda haddana nebiyullaahi ibraahim ayaa dhisay dhismaha nebi ibraahim waxaad ka dhigi guri saan iskaga furan oo kor ka furan 2 iridood ayaad u yeelay iridoo orax u dhacay iyo iridoo orax ka soo baxay labadaas iridood ayaad u yeelay mabaati iyo saqfi iyo wax lahay ma jirin markaas ayaday wax saarnaay ma jirin nebiyullaahi ibraahim dhismihiisi ood kacbadan aan salaada la qaabilayna sidaas ayay ahayd 2 albaabna waa u furi labadaas albaab 2 iridood oo bay ahaayeen albaab ma lahayn 2 iridood oon albaaba aanan lahayn tiir oo tiirarka ka mid waan gaari doonaa insha allah midkaan oo orax u dhac iridaan waa iridda haddaba furan waay iriddaba albaabka kacbada hadda aad ku dhisan yahay iriddan dambe ayaa la shari doonaa oo ay dad shari doonaan nebiyullaahi ibraahim kadib kacbada waxay ku dhex taallaa waadi weyn oo biyo mareen hadda dhulka saxara iska noqdo moogii waadiyaal biyo mareen mar walba biyo ayaa dumin jireen qabiilkii reer jurham ayaa dhiseen dhismihii nebi ibraahim unbay ku celiyeen nebi ibraahim ka bacdi qolo kale oo camaalaqa la dhaha ayaa haddana dayactireen dhismihii nebi ibraahim waxba kama ayna bedelin marka dambe ood haddana daad saxriiri oo ay jabdirbiyaalkeeda ay rafaadeen
waxaa dhistay qabiilka Quraysh ahay hirjidii rasuulkeena soo banaay 18 sano oo ka horeysay nabiga nabinimadiisana 5 ka horeysay ayaad qabiilkii Qurayshaad aan dhisna ayay go'aan ku gaareen way tashadeen oo waxay ku tashadeen kacbadan xoolo xaraan iyaan la soo gelinin nin xoolihiisa xaraan yihiin naag sharmooto waxay dabadeed keentay waxaas iyaan la soo gelinin ay ku macnaha nin injineer oo Yaman ka imaaday ayaa kacbadii inaad dhisay loogu yeeray kharajki ay haayeen ayaad weydii markaad kharajki aad macnaha waa gaari weysa kacbada kharajka ay haayaan iyo dhismaheedii waa iskeeni weeyeen 3 mitir ayaa laga aad ka jaray marka nusqaan ayaad ku suubi waa la gaabay qayb ay ka gooyeen dadka xajka tageen waad aragteen meeshaan gaaban oo xijir Ismaaciil la dhahaa meeshaas ay kacbada ayaa kamid ahayd injineer ayaa waxa dhahay kharajkan intaan gaari mahay intaas ayaad ka jaray xogo isbedel ayay ku suubiyeen kacbada isbedelka ay ku suubiyeen qaybtaan horta way ka yareeyeen kharajka oo ku yaraada darteed darbigeedana kor ay u qaadeen kacbada darbigeeda waa gaabnaay darbi kor ayay u qaadeen waxa kale oo Quraysh ay ku suubiyeen kor ayay ka dhiseen awlooru kor waa iska furneed kor ayay ka dhiseen waxay kale oo Quraysh ay ku suubiyeen ridii oo rax u dhac jirtay waa xireen markaas ayada ridaas sababta ay kor ugu shareen waxa waaye dahab farabadan ayaa kacbada dhaxdeeda yeeli jiray niman tuugi ah in soo fuuleen darbigi ayay dahab ka xadeen hatta kacbada ku hata walaal ka xaday moogta xujaayda waa daaratay macna la jeebsiiba waa daaratay marka tuugadaas inay soo gelin kar ayay kor ka dadeen kacbada ma inaan dadnaan jirin نعم marka sida macna 6 dhudhun ama 3 mitir ayay ka jareen نعم meesha xijri Ismaaciil caamada waxay leeyihiin meesha nabiyullaahi Ismaaciil ari ku xareysan jiray war nabi Ismaaciil ari kuma xareysan jirin waa qayb oo kacbada kamid oo aad kharajki gaari way saa darteed markii la dawaafa hadii aad meeshaas yar aad marta kacbada gudaheeda aad dawaaftee dawaafkaada ma ansaxa inaad banaanka marta ayaa laga rabaa inkastoo hadda askar ay taagan tahay dhismahaas Qurayshaad khasaa'istiisa waxaa kamid nabi maxamed ka qayb galay salawaatullaahi wa salaamu calayhi markii kacbada xajrul aswadka annaga meesha gelinayna ay dhaheen oo ay ku murmeen nabiga ayaa yiri marakeena mara la fidi xajrul aswadka qaaday waa saari qabiil walba dhinaca qabta adahay sidaas ayaad ku saar marka sharaftaas ayaad leeyahay dhismahaas ayada macam foodhishigaas kacbada ay ku fadhiday nabiyullaahi ibraahim macna dhagaxaas nabiyullaahi ibraahim ayaa dhisay ilaa 5,000 oo sano ka badan ayaa dhagaxaas meesha ku jiro waa mucjizo waaye jijibi mahay mahalaabay inta soo gooro ayay bijibiyeen meeshi waa id yarfacu ibraahimul qawaacida marka waa mucjizo waaye waa mucjizo ayaa meeshaas ayada ku rakibin fihi aayaatun bayinaat xajarul aswadka maxaad yahay xajarul aswadka waa dhagax laga keenay jannada ayaa laga soo qaado malaku jibriil loo soo dhiibay rasuulkeena subhanahu salawaatullaahi wa salaamu calayhi wuxuu leeyahay caana waa ka cadaay bahal cadaan badan ayaa tahay tiirka oo kacbada kamid hal tiir oo kamid ayaa la qoday xajarul aswadkaas ayaa meesha ligid waa cadaan jiree bini aadanka taabishadiisi dambigiisa aad isku tirtiray ayaa la madoobaad hadda waa madow yahay waa cadaan jiree alla bini aadanka macna dambigiisa saasa macna muddo dheer markii ay macna meesha joogeen ayaa niman shiica oo qaraamid la yiraahdo oo shiicadan qaybtan Ismaaciilido baadiniyada ay kacbada ku soo duuleen maka ay ku soo duuleen oo way qabsadeen waxay dhaheen dhagaxan oo xajarul aswadkan qaadan taariikhdaad ma maqasheen kacbada oo xajarul aswadka dhagaxay dhagayseen waa jijibiyeen
واقعتين مرك واقعدين المقالة أيها توضع إحسان ليرادة أيها جيين مساجد وين أو قاضي أو مقالة ضوضة كويلة أو مقالة إحسان كويلة أيها تير كيس كمد أي قضينا كو الحامين يجليين كعبد اللباتن سنة أيها حجر الأسود كات كمقناي وي هايستين بلاي بعد دبدا كجشة حوله وكذا معدين عذر أيها جلاء ناق عين لهاد أيها ويين تير رنتين عنق بايصوت توري حوالهم الجيران وحام بعوجنا نسكعل نايدين وساق هذين ماشي كسوعليين ماشي أي كسوعليين وحي قادين سدح بقول طبعا السجال كهجريد مركي عيهد أي دجح لبحين وحين السوعليين سدح بقول صدن السجال كأي سوعليين مركز اللباتن سنة أي لما قناين مركز سيدي رسول كان صبنا صلوات الله وسلامه عليه وحليه والله بان كل دارتين دجحان حجر الأسود كإيه يوم القيامة وصباح دونا أصغر الله بين دوت قبا وح أركاي عرب نكو رماي وحانت أمركات كعدونات من الله لا ننك السلامي هذا كعنت اللي جاري ويسه أما بعد نكو ويسنا سلام تاس ننك حاجة وكان صحيح حديث الترمذي واي نعم حجر الأسود كسدح متر ميلهاس آيات جرا مركا مقام إبراهيم وحلي يرادا جرا دغخي النبي الله إبراهيم دغخ اسكا عادي او سبسبي او دغخان غرمقاتا آيات نبي الله سو قادي اسو ويلكيسي دغخي آيات كودساي انجينيا معنا واي فوندي اسغا واي ويلكيسنا شقاله آيات وهاي مركاس دغخاس خصائصتيس waxa kamid dhagixii sidaan aad ugu taagnaay oo san aad ugu taagnaay dhagixii garmaqaatahay ayaa lugihiisa dhaxgaleen lugihiisa farihiisa dhaxgaleen dhagixii sidii wiishka oo kalaata dhismihii kor markaad u kaca waa la kaca nabiyullah ibraahim haddana waa la soo noqonaa mucjizo hadda waa la soo noqonaa dhulkaas imaada wiilka dhagaxa ka qaadana kor aad ula kaca maqaamu ibraahim ayaa la yiraahdaa مقام إبراهيم بنان كان دقيقة إسكيل لوجيسي فرها سداس أي أو قرنان جيران سيد بني آدم كو ترتراي الله دونكناي الله تابناي هذا عجيه أمبام مقدانه فريه واب قرمم ماشي فرها واب قرمم سيد سوركات كاركيس أما بعد كارك دونت الكعبة آيات أدواي سيد عمر آيات يرد كان دوافا آيات دبا حقها الله يردقاجي مركز سيدي حق الله دقاجية مركب وحاكمدي كعبضة وحاك ماشاس إلهي وحاك إلهي إن لعابد قال المشركين تدقى حكستو قرحان ويعابد جيران لكن كعبضة ولقيت لما عابدين إلهي با إلهي حجر كاس أما دقى حاس والنبي إبراهيم كروسنا مقام إبراهيم وسونا ولقيت لما عابدين وإلهي با إلهي قال هذا وعد أركتين دقح كستا دقح يرق فديه مل فديه أو يرق قرحان أو أي معنا إلهي واديه جيران مثل جيل قمنا أو عربي الجيل كجلابي مرك دقح فديه إلهي وإلهين ور إلهي متيد بقت النجاسات جيل يجلابي النضع مركز سيده كده مركز دقح كستا وعابد يو احترامه أيقو حشمينا وليس لمعابد لكن مؤكتهي قال يهود إن أتصوكعي مقام إبراهيم دقيحي النبي الله إبراهيم تكو استاقي جيري آيات حظي ووقت الكالهوردة قادي قرقيس آيات جي هدي اللي هذا مساجد كبا دقيحي ميال والله فتشاه والله أرده دقيحي قرقيس آيات لغي سبحي معدو حد آيالا دهي وحد دهي بقر كرير يورب بقر كرير يورب إن هدي سواد جيان ربيع ضاي هدي سواد مؤمن وصاد من الله سعوتها يا إن معنا هير كاسي عقد الداس أي كعبض ألعبتي ما يش تالي أي طبعا إن هدي سويان نكاس أي مركز دم على كل حال والد لي نكاس أي سكور ضيّة مركز أيده وحاكمد ماء الزمزم نبي أو نبياش كمدي رسول معنا ملك أو ملائكة كمدي
ayaa nebiyullaahi ismaaciil oo sakaraada oon ayaa meeshii garabkiisa ku dhuftay biyahaas ayaa ka soo booday miiqaa sana biyahaas xoogooda kacbada hoosteeda ay ka soo qulqulaana la dhahaa maqaa laga raraa yoomiyan miiqaa booydood miiqaa matooro oo lagu wadaa waxa yaraana maa dhulka kalena biyo ma qabaan markaas ayade maa u zamzamkaas aada aragtay maa u zamzam dhulka dee muddo dheeraa soo maree waa duugmay maraa duugmay qoladii qurayshaad waa qaani weeyeen masaajidka dhamaala ciid lagu rogay bacaadsaar marka waa aqaani weeyeen meeshaa dhahay nabiga awowgiisa oo cabdilmudalib oo hurdaaye ayaad nin riyo ugu tilmaamood dhahay cabdilmudalib oo macnaha maa u zamzamka ceelkiisa meeshaas iyo meeshaas waa fiiriya qodaad dhahay meeshii ayaad qoday marka alxamdu lilah maa u zamzam ceelkiisa oo duugmaad ilaahay waafiji meeshaad carada ka bixi sidaa darteed maa u zamzam siqaayada asagaa mas-uul ka ahaan jiray maadaama isugu helay baadida soo helay asagaa dadka waraabin jiri marka dambena wiilkiisa cabaas ayaaba ugu dambeysay ad ogtihiin kacbada waxay leedahay furaheeda kacbada furaheeda oo macnaha waxaa waaye nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ninkii furaha haayay markeed maka imaado furaha keenaad dhahay waa u diiday inkusiinaad dhahay waa ka qaada xoog hadduu qaado waa furtay waa galay marka dambe waa loo celi qolo oo reer banu shaybe la yidhaahda ayaa hadiye ilaahay aad u siiyey oo hadba ninka curadku oo cidda u weyn aa furaha haynayo lagama qaadayo khaalidatan taalidatan ayaa la dhahay furada kacbadeen ayaa haaye haddii nala su-aalo naqaani weyne macnaa reer banu shaybe hadba ninka curadka haynayo hadda ninka ayagu daad weyn ayaa haay markaas ayadee kacbada ma la furaa quraysh maalin kasta oo isniin iyo maalin kasta oo khamiisi kacbada way furi jirtay hadda sidii ma ahaanin waxaa la furaa maalinta bisha shacbaan ay 15 shacbaan waa la furaa bisha dilxija ama bisha carafa sagaalkeedana labadaas keliya la furaa inta kale waa quflinta waad aragteen labadaas kacbada albaabkeeda goormaa la furaa haddaan 15 shacbaan iyo 9 bisha carafa kacbada wax midow oo kor ka saaran ood aragteen waxaa waaye dhar xariir waaye maalinta bishii dilxija ama bisha carafa ay 9 tahay maalintaas ayadaa dharkii hore laga geynayo dharkii hore laga dejinaa dhar cusub ayaa la saara oo xariire xariirtaas kharajkeeda waxaad gaara ayaa la dhahay 17 milyan oo riyaal 17 milyan oo riyaal ayaad ku fadhiyaa xariirtaas iyo macnaha marka laga dejiyo dadkii muslimiinta baa la qaybin oo qaybsanayaan markaas ayada kacbada waa la dhaqaa kacbada nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maalintii adfuri dhexdeeda masawiro oo ayaa ku dheganayeen muslimiintii nabiga waa dhaqeen maa u zamzam ayaa lagu dhaqeen markii kore macnaha sanamyaalka ay jibiyeen macnaha waa dhaqeen suuriyaalkana waa la tirtiri wixii masawiraayo dhexdeeda ku jiro dhan waa la tirtiri maa u zamzam ayaa lagu dhaq haddaan kacbada sanadka 2 jeer ayaa la dhaqaa waa labadii hadda albaabka la furaay shacbaan 15 kacbada waa la dhaqaa maa u zamzam ayaana lagu dhaqaa waxaa kale oo bisha dilxija ama bisha carafa sagaalkeeda iyadana waa la dhaqaa maa u zamzam ayaa lagu dhaqaa dhaqitaanka kacbada ciidamaha la keenaa military iyo commandos la keenaa waxaad qaadanaa 3 saac ayaad soconaa markaas ayada marka kacba magacyaalkeeda kacba waa la yiraahdaa sida quraanku aragteen jacala allahu alkacbata albayt alxaraama qiyaman linnaas bayt waa la yiraahdaa ina awala baytin wudica linnaasi liladii bibakka baytullaahi waa la yiraahdaa وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين بيت العتيق والإرادة وليطوفوا بالبيت العتيق
قبلة واليرا فلنولينك قبلة ترضاها وتكعبد مقعيالك سيجار ولده أما مكة واليرا هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم ببطن مكة بكة واليرا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا القرى واليرا ولتنذر القرى بلد واليرا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بلد الأمين واليرا وهذا البلد الأمين حرما آمنا واليرا أولم نمكن لهم حرما آمنا واد غير ذي زرع واليرا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إخوة الإيمان أنت محن وجه سنة كعبضاس أيا نتواق نوغلط إيه مسلمين تودن أيانا لدهي ماشاس وقابل قارد أمريكا داس جري حدد قارد أوروبا قارد آسيا قارد أفريقيا قارد أستراليا قاردها صدن كعبضاس أيا لو حري marka bariyaha waxa soo galay dacaayad oo ay gaalada leeyihiin annaga da kristaan hadaanaan ama yuhuud in dhagax caabudayna lagu dacaayideynaysiin muslimiinta idinka dhagax caabudaysiin kacbada caabudaysiin waxaad kacbada ugu soo jeesanaysiin arintaas dacaayada annagu dhagax ma caabudno amar ilaahi ayaan qaadana fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram amarkaas aan qaadinayna فولوا وجوهكم شطر أمر كاسان قادرين أما كعبة عابدين إن عابدين حجر الأسود سيد عمر رضي الله تعالى عنه وأرى الله مركي أدنكون أي محاضة مركي أدنكون وحاضة ورياه وأرئنا دقحتا أنا وكوجدا وحبنا تريم إيمتريسد وحبنا إيما أنفع كريسد وحنكون دنكونا اتباع واينا محمد وكلن كنا انكار كان كلن كنا موغي ضر نعف من إيماي صادرتد الدبريان waxaa soo galay in dadkii mustashriqiin dad la yiraahdo oo tafsiirka wad garanaysan sideetimihi jaamacada Nairobi tafsiirka quraanka yaa u qaadanay gabar kristaan u qaadanaysa maadada tafsiirka kitaabkeena quraanka gabar kristaan ayaa u qaadan jirtay hadda nimankii ahadiisay barteen tafsiirta ay barteen أحكامتي أياي برتين تاريخ دي أياي سوقتين مركاسة أيدي إني كوجد بجديان بابا قطر سامين قطر تاس أيا كسون سيدي أي جبل دقد الضواف تاع ولاده نبي قبر جيسان ضوافي سيدي دقي عاد أوليه هاي أنت وحن وجي جيسني النبي قبر جيسا أنت جري واحد أوليه قطر تاس أيا جرت بركان أوجانا أنت وجي جيسنين وكعبداس أو مجال مسايت مرات كده الله oo Makka ku dhaxtaala oo xaramkaas weyn ku dhaxtaala oo isqaabilsiin Baytul Ma'mur ayaga sidii uu nabiga habeenkii la dheelminay aad ku arki sallallahu alayhi wa sallam marka waa inaan ogaanaa waxaan inta ugu jeesanayna dhinac aan ka jarbo xujaayada waad aragtay dhinacaan hadaad ka marto ida waay dhinacaan ka mar ida waay dhinacaan ka mar ida waay kuwaasoo Ruushka iyo Jabaan iyo dhulkaas soo jiraan عراقي أنت يسود دكونان كواد يوروب توكلات أنت يسود دكونان كواس أمريكي غاردان أنت يسود دكوناين دقحاس مركب مسلمين تينا اسكو حرمان هل كاس نتواق معناها أنوليالي هل كون ربي كليح أيان لينهاي هل دين أيان لينهاي هل رسول أيان لينهاي هل كاس كعبادة أيان كل وذا قابلينا مركب معناها رسولك صلوات الله والسلام عليه meeshaad barakada taala xaramkaas aaminka barakada taala magaaladaas makaad barakada taala halkoo salaad oo lagu dukudo kun salaadood oo ku dukutay meel kale 100,000 oo salaadood 100,000 oo salaadood 100,000 oo salaadood oo magaaladeena ku dukutay miqa waaye 55,000 iyo معناها كنتن إيشان سنة إيو لح بلاد معناها إيو معناها لبعتن هبين ميلهس أي نقوليسا أنت أدكون اسمي قوى حجبل أو هبل هذا مقادرته
meeqaas dukunayse oo meelaha dhulka beledii baadiya dhulkeena ku dukunayse aniga waxaan jiraa 80 aan jiraa ama 70 aan jiraa 20 jirkii waxa dhalinyarada la iska hay reer baadiya la iska xoolaha la raacay ka soo qaad goormaad balawday markaas ayada maad balawday hadda waxa 55 sano iyo 6 bilood iyo macna 20 habeen salaadii aad meel kale ku dukunaysay ama faral ama sunne halka salaada lama qayr ah waa ka fadli badan saadarteed muuminiinta kharajka naga baxay oo maka nooga baxay laba salaadood hadda dukuto ka waran hadda saddex dalaad ku dukuto culimadu waxay biliin salaada kaliya ma sadaqadana wacaynka soo kalaatay ad shilinko aad maka ku bixisay 100,000 oo shilin oo meel kala ku bixisay ayay la toota khayr kala oo khayr dhamaal sidaasi marka de tahwi ilay meeshaas loo oomanay meeshaas hilow maki madiina loo qabi jiri hadda buufisa ku dhacay ilmaheen hadda Yurub iyo America ay buufisa da qalbiga waaba ka baxay maka waa yeelay hore odayaashii daqoobihi maka ay madiina wirdigooda iyo qalbigooda meesha ay ku taagneed haddana isbuufis macna meel kale ayaad macnaha aad ku juraa waxaan inta ku jeesanayna waxa waay amar ilaahay baan qaadinaynaa waxaan qaabilaynaa kacbadaas oo taariikhdaas soo martay macnaha ayaan qaabilaynaa ajirkaas faraha badan leh sidaas aan ogaanaan la soconno ninka aqaan waaba aqaaneen ninkaan aqaanin dadkan aan aqaanin inta qabri nabaa jirayana la dhihin aan ku baraarugno ala sallu wa sallimu ala nadir al-bashir faqad amarakum Allah fi kitabihi faqal inna Allah wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وفقنا لما تحب وترضى أقم الصلاة